dhegaystayaal inkastoo xiriirka xididka ka dhaxayn jiray uu lahaa dabeecad gooni ah in la dhowrana loo badnaa, haddana marmar buu dadka xididka ahi isqoomi jiray. mid gardaranba kolkolbaa intay arrintoodu shaacdo ay geedka garsoorka tegi jirtay, maantaa kadibna isu rogi jirtay wax uu dadweynuhu ku sheekaysto. ciddii ay taasi la yaab la noqotana waxaa la xusuusin jiray mahmaahdii ahayd laba la arko carab iyo ilko ayaa isugu dhow, iyana way isqaniinaan. qardoofooyinka xubnaha xididka dhex maraa waa kala heer, waana kala culus yihiinoo waa kala foolxun yihiin. taasna waxaa si wanaagsan u qeexay abwaankii Soomaaliyeed ee oran jiray nin iyo seedigiis wada hadlay, suugaantan rag baan mooday, sodogii hadday gaadho saxariir rag baan mooday, sodohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday. macnaheedu wuxuu yahay nin iyo seedigii doodi dhex martay layaab badan ma laha oo hadalkoodu marnaba ma qaawanaado. waa sarbeeb iyo dulmar, jiritaanka reerka lagu xidhiidayna wax ma yeesho. sidaa darteed waa wax la garan karo loona dulqaadan karo. haddiise isla arrintaasi ay sodoga kol dambe u gudubto waa silic iyo saxariir. waxaase ugu sii daran labadaas ragga ah mugga inta soo dhaafto ay sodohda soo gaadho, saygeedana ay la safato. waa goortaas abwaankii murtidaa laga maqlay goortii uu saadaaliyey in la joogo dhammaadka xididtinimadii labada qoys, isaga oo leh ha dhowaata hase dheeraatee qoys ay sodohdu la colowday inuu burbur ka badbaadaa waa habeenkii xalay ahaa ee tegey. si kastaba ha ahaatee khilaafka xididku wuxuu marmar gaari jiray in la isu gabiyo oo ninka ay gabadhu u dhaxdo iyo reerka iyada dhalay ay maanse ku wada hadlaan. maansada ujeeddadaas lihi waa laba qaybood, badankeeduna cabasho, is-eedaysi iyo kala sheegasho ayay daaran tahay. qaybta hore waa tan aan waxba la isu reeban oo inta wixii la isu ahaa la iska halmaamo uu gabyaagu afkiisa furto isaga oo aan cidnaba tixgelinayn. tira ahaanse ma aha wax maansada Soomaalida aad ugu badan, waxaana lagu doodi karaa inay tahay wax ku eg rag inta markii hore si wacan u xidhiiday gadaalkii siyaasadda iyo hogaaminta bulshada ku coloobay. maansayahanadii arrinta sidaasa dhinac ka ahaa wixii ay tiriyeen tuducyo ka mid ah ayaan toddobaadada soo socda taxanahan idinku maqashin doonaa hadduu eebba idmo. qaybta labaadise waa iyada oo aan sariigta laga tegin tixaha uu xididku isu tabiyo. midda noocaana markay isu tirinayaanna waxay ka maagi jireen erey kasta oo lafajabis ah, labada dhinacna colaad gundheer ka dhex abuuri kara. sidaa darteed bay intay kari karaan waxay tixaha ka ilaalin jireen afxumada iyo wixii gabyaaga tiriyey berri ka maalin barmadow ku noqon kara. waayeelka miyiga ku soo barbaaray ee maantaba nooli siduu og yahay, Soomaalidu markay meel u sodcaalayso sahay ma qaadan jirin. waxay isku halayn jireen dhulka ay sii mari doonaan reeraha degan, kuwaasoo uu dhaqanku dusha ka saarayay socotada ku soo hoyatay inay sooraan, labada aqoolood ee ay la joogaanna ay si wacan u hayaan. taasna waxaa gadaalkii ka abuurmay xeer idilo ku saabsan hiddaha martigelinta. waxaa hiddahaas ku ceebaysnaa ninka lagu barto inuu ka seexdo oo martidu markay soo muuqato ka dhuunta, ama si ay uga gudbaan inta xanuun beena isku rida naaraar culus igu dad afadiisa ku yidhaahda. sokeeye iyo shisheeye kay ahaadaanba wuxuu dhaqanka Soomaalidu fari jiray martida in loo kaco, cad iyo caano gasiinkii kolba loo heli karo in loo huro, laab iyo weji furan lagula sheekaysto, waa berigiina si wanaagsan loo ambabixiyo. ninkii aan sidaas yeelin mudal iyo qaduuc bay u yaqiineen. diyaal kasta oo ay qabaanna qoyskiisa kuma ay leexan jirin. guud ahaan iyada oo dhaqanku uu sidaas ahaa ayay ugu sii darayd martidu markay xididna noqoto oo haweenayda qoys kale iyo iyagu ay xigta dhow yihiin. markaasoo kalena waa marka kashkash iyo isxilqaan siyaada ah ninka gabadha qaba laga rabo. waa marka ay tahay isku mar inuu ninkaasi iska rido xilka martinimada iyo midka xididtinimada ka saaran labadaba. haddiise ay sidaas noqon weydo oo martida xididkana ay saluugto sida loo martigeliyey, si hufan bay uga gelgelan jireen. kolkolna cid gabay taqaanay haddii ay ku jirto waxbaa laga odhan jiray kaftanba ha loo ekaysiiye.
sheekadan aan kol dhow idinku jalbeebin doonaa berigii ay dhacday waxaa la deganaa geyi barwaaqo ah oo gu'iya dayr samaaday intay isu raaceen ay weelashii la haystay caanihii ka bateen waa xilliga caanadiidka ee intay ka badbataan ay dadku nacaan oo iyaga iyo dhiiraha ay ku jiraanba isha iyo afkaba laga duwo waa markii caleeliska loo jaftoomo ee ruuxu waliba uu jeclaado hilib ama badar inuu cuno sidaasna uu caanaha kaga nasto iyadoo xilliga sidaasa lagu jiro ayaa niman socota ah wuxuu gabalku ugu dhacay qoys ay xidid ahaayeen oo haweenayda lagu qabo ay isxigeen si wanaagsan buu ninkii reerka lahaa ugu kashkashleeyey fiidkii markay xoolihii u soo gurya galeenna wuxuu hareeraha ka dhigay aagaamo caana ah iyo haruubgaaladii ay kaga durduuran lahaayeen show saydigood ma dhaagine martidiisu wax caana ka badan bay reerka ka filayeen waxay ka filanayeen inuu u loogi doono oo inta wanshilis loo qalo caanaha ka sokow ay habeenkaas bari iyo baruurba ka haagi doonaan taasi ma dhicin dabadeedna sidii rag laga seexday iyaga oo u hundhuraaya ayay dhinaca dhulka dhigeen waagu kolkuu u bariyey oo ay ambabaxayeen ayaa haweenayda reer kale mid ay ilma adeer labaad ahaayeen ninkii u seediga ahaa 2 meelis oo gabay ah ku tuuray 2 meelis oo uu kaga cabanayo xalay caanihii keligood lagu sooray iyo hilib la'aantii ay ku seexdeen wuxuu yidhi xididkaa wan baa loo qalaa laga waraabshaaye haddaad ciir la soo waantideen wacdayeelkiin markaas buu ninkii loo martida ahaa ee seedigana loo ahaa isla goobtii ku jawaabay 2 meelis ee loo tiriyeyna ka celiyey 2 uu eedii isaga reebay bulshadii waagaasi sidii ay ka markhaati furtay wuxuu yidhi caanaha wanaag lehe haddaan idin waraabsiiyey asaad hilib u weer xidhan tihiin wacdayeelkiin sida kuwaas hore niman iyaguna socota ah ayaa ku soo hoyday reer ay xidid ahaayeen hiddaha martigelintu siduu qabayna 2 gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto lama jeclayn waatuu gabyaagu oran jiray marti xiisaheed waa habeen reerka loo xulo sida xunsho inay yuururtaa waa xil iyo ceebe hase ahaatee qoladana intay taa iska halmaameen ayay golihii dhowr cisho ka hor loo wanaajiyey intay mindhaa macaansadeen isaga nagaadeen goor haddaba ay reerkii naftu qabatay ayay isweydiiyeen war maxaynu ka yeelnaa nimankan meesha inoo dhacdiida mid baa yidhi aynu gabadhooda u sheegno iyadu ha la hadashee mid kalaa yidhi aynu u gabayno labadaas talaba markii ceeb loo arkay ayaa raggii soo jeediyey lagu diiday ugu dambaystiina gabyaa maraha beriyo cadan joogi jiray xoogaa carabi ahna ka soo bowsaday ayaa yidhi tan oo kale gabayla-aan dhici maysee aniga ii daaye aniga ayaa u tirinaya tix aynu ku ciilbeello isla markaasna aan xaal inagu raacin waxaan isugu barxayaa af soomaali iyo af carbeed aanay garan karin oo maxaad odhan lahayd ayay weydiiyeen markaas buu yidhi waxaan ku odhan dadka kale mar buu yacrifaa ya'kulkii maraye iyaguna halkay arqudaan kama yaquumaane alladii yastaxyii maafish oo maba yasiiraan dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo